Assalaamu calaykum. Baabasiirka waa barar ku yimaada xididada dabada iyo walamadka. Goortii ay dhacdo in ay bararaan xididadu, waxaa ka imaanaya xanuunka uu dareemo qofka qaba baabasiirka. Hemorrhoidska afka qalaad ama baabasiirka waxa uu noqon karaa mid leh xaalad aan fiicnayn iyo xanuun daran, balse waa mid ay sahlan tahay daaweyntiisa iyo ka hortaggiisa. Cudurkan guud ahaan sida la ogsoon yahay waa cudur ka soo dara waqtiga uu ka dambeeyo. Waa haddii aan loo samayn la tacaalid iyo ka hortagba. Talada iyo tusaalaha dhaqaatiirta ee la xiriirta cudurkan ayaa ah in la iska daaweeyo cudurkan markiiba lagaa sheego, ama aad isku aragtid calaamadaha aan kula wadaagi doono maantay. Muuqaalkeena maanta ayaan kaga hadli doonaa waxa keena cudurkan iyo sida loo daaweeyo baabasiirka ama hemorrhoidska waxa loo yaqaan afka qalaad. Ka hor muuqaalka, haddii aad danaynayso inaan ka soo hadlo muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh channelka si aad noogu soo biirto, asxaabtana u gudbi si ay wax uga faa'iidaan. Mahadsanid, aan bilaabo muuqaalka. baabasiirka waxaa jira 4 xaqiiq oo la xiriirta cudurkan markii laga sheekeynayo, una baahan in aad niyadda ku hayso. Xaqiiqda ugu horeysa, cudurkan waxa u dhow inay qaado ama uu ku dhaco haweeneyda uurka leh marka loo fiiriyo haweeneyda aan lahayn uurka. Xaqiiqda labaad ayaa ah in cudurkani uu sii karo mar kasta oo aad sii weynaato haddii aan lagaa daaweyn ama aan lagaala tacaalin. Xaqiiqda saddexaad ayaa noo sheegaysa in baabasiirka uu ka yimaado bararka ay bararaan xididada dabada iyo walamadka, calashaan gudaha iyo bannaanka dibka. Xaqiiqda afraad waxay leedahay mararka qaar jiradan waxay u baahan tahay in lagu daaweeyo kaniiniyaal iyo boomaatooyin. Mararka qaarna xaaladdu waxay keentaa in lagula tacaalo qalliin. Si guud, baabasiirku waa cudur ay keenaan waxyaabo kala duwan sida waxyaabo la xiriira deegaanka iyo nafsiyan qofka wax ku dhaca. Waxyaabaha keena baabasiirka waxaa ka mid ah uurka. Sida ku cad cilmi-baarisyada la sameeyey, waxaa la isku raacay dadka ugu badan ee lagu arkay cudurkan inuu yahay haweenka uurka leh, sabab ah in ilmo-galeenku uu cadaadis soo saarayo xididada xiidmaha caloosha, sidaasna ay ku bararaan xididada dhiigga ee dabada iyo walamadka. Da'da ama gabowga. Dadka kale ee ugu badan oo lagu arkay cudurkan ayaa ah dadka da'doodu ay u dhaxayso 45 ilaa 65 sano jirka, taas oo la micno ahayn in dadka intaa ka yar uusan ku dhicin, balse waxaa jira dad dhalinyaro iyo carruurba ah oo cudurkan uu ku dhacay, inkastoo looga badan yahay dadka yaryar iyo ilmaha. Waxaa kaloo cudurkani keena shubanka joogtada ah, maadaama cadaadiska shaqada ee dabada uu badanayo. Saxaro adayga waa sabab kale oo keenta baabasiirka, maadaama ay jirto cadaadis iyo jiirasho saameyn u geysanaysa xididada ku yaala derbiyada walamadka iyo dabada. Fadhiga badan, kana waxa uu qayb ka yahay sababaha uu ku yimaado hemorrhoidska, khaasatan meelaha adag iyo tuujiga musqusha oo waqti badan la fadhiyo. Ku celcelinta qaadida culayska saa'idka ah waxaa laga qaadaa cudurkani baabasiirka. Ficilada xunxun ee qoomuluudnimada iyo dabada oo qofka wax looga geysto waxay keeni karaan xanuunkani baabasiirka iyo xanuuno kaloo fara badan. Cayilka uu keenay isticmaalka badan ee cuntada waxa uu qayb ka qaataa cudurkani baabasiirka. Ugu dambayn, waxyaabaha kale ee keena cudurkani baabasiirka waxaa ka mid ah dhaxalka la iska dhaxlo cudurrada. Intaas waxay ahaayeen waxyaabaha keena cudurkani baabasiirka. Haddana aan u gudubno sida loo daaweeyo oo aan dhowr qodob ku soo koobi doono. Ka hor daaweynta, waxaad isku arki kartaa calaamadahan oo u baahan inaad dhakhtar kala tashato. Haddii aad gaalkacyo joogtana, waxaad imaan kartaa xarunta isbitaalka Daarudabiib si aad ula tashato dhaqaatiirta joogta oo ku taal kaaweedka ama kala soo xiriir nambarada shaashada ku qoran.
calaamadaha waxaa ka mid ah dhiig aan xanuun lahayn oo ka yimaada dabada, cuncun dhanka dabada iyo walamadka ah, dhibaato deganaansho la'aan iyo xanuun dhanka dabada ah, barar aad ku arki karto bannaanka iyo gudaha dabada, iyo ugu dambayn saxarada oo aad ceshan weyso. intaas ayaa lagu arkaa qof qaba cudurkani baabasiirka, balse waxay u baahan tahay si aad u ogaato inuu yahay waxaanay baabasiir ama cudur kale in aad la tashato dhakhtarka markaas kugu dhow ee quseeya inuu daaweeyo cudurka baabasiirka. daaweynta waxaan u kala qaadaynaa kuwa aad adigu ku samayn karto guriga iyo kuwo u baahan inuu dhakhtarku kuu soo qoro. kuwa aad guriga ku samayn karto waxaa ka mid ah saaridda baraf, inaad ku qabato wax qabow meelaha bararan ee dabada, maxaa yeelay barafku waxa uu ka qayb qaataa dejinta bararada ku yimaada jirka. ku fadhiisiga biyo diiran, habkan waxa uu kaa caawinayaa inuu yaraado dareenka cuncunka iyo gubashada. ka fogaanshaha tiishka qalalan, maxaa yeelay tiishku waxa uu kuu keenayaa in uu bato cuncunka dabada oo ka qayb qaadanaya koritaanka cudurkani baabasiirka. xanuun baabi'iyaal, isticmaalka xanuun baabi'iyaasha sida asbiriinka, ibuprofiinka iyo kuwa la midka ah waxay kaa caawinayaan yaraynta bararka iyo xanuunka jira. markaan u nimaano daawooyinka ay soo qori karaan dhakhaatiirta waxay noqon karaan kuwo kala duwan, balse muhiimadda waa in ay noqdaan kuwo ay ku jiraan wax cuncunka yareeya dejiyana bararka. waxayna ka koobnaan karaan saynbosto oo dabada la iska geliyo, sharootooyin dabada lagu dhajiyo, iyo boomaatooyin kale oo la marinayo baabasiirka. sidoo kale waxaa jiri kara xaaladaha qaar oo uu baabasiirku gaari karo qalliin, taasna waxaa xaqiijin kara dhakhtarka ku shuqulka leh daaweyntiisa. waxaana jira dhowr qalliin oo kala duwan oo ku xiran hadba midka uu dhakhtarku u arko inuu yahay midka kuugu habboon. sidaa daraaddeed mar walba waa inaad qaadataa talada dhakhtarkaaga. ka hortagga cudurkani baabasiirka waa fudud yahay sida daaweyntiisa oo kale, keliya waxaa samaysaa dhowrkan tallaabo. isticmaal cunnooyin nafaqo leh sida kuwa diirka leh si mar walba saxarada u ahaato mid jilcan, badina cabidda biyo kugu filan si aad u noqoto mid yeesha calool jilcan. iska ilaali jiirashada badan ee saxarada, tani waxay cadaadis saaraysaa xididdada walamadka, taas oo sababi karta cudurkani baabasiirka. aadidda suuliga ama xamaamka mar kastoo aad dareentid inaad u baahan tahay, maxaa yeelay mar kastoo aad ka daahdo waa mar kastoo ay sii adkaato calooshaadu. samaynta jimicsi joogto ah waa hab ku habboon ka hortegidda baabasiirka, maxaa yeelay fadhigu waa mid ka mid a sababaha cudurkani baabasiirka. miisaankaaga oo aad ku ilaalisid meeshii loogu talagalay waa ka hortag wanaagsan, maxaa yeelay miisaanka badan waa mid ka mid ah waxyaabaha keena cudurkan baabasiirka. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. haddii aad wax ka faa'iiday fadlan like saar, sabscribe na dheh janaalka, gambaleelkana furo si aad u hesho muuqaaladeenna cusub. mahadsanid.